aabbuhu toosnidiisa waxay ka qayb qaadataa ilmaha toosnaantiisa qalloociisuna bulshada qallooceeday ka qayb qaadataa waayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa laba aayadood oo qur-aan ka mid ah ilaahay wuxuu tilmaamayaa duul diiday waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu ila arasuul war waxyiga iyo rasuulka wixii loo soo dhiibaya alle wixii uu soo dejiyey kaalayoo qaata baa la yidhi maxay ku jawaabeen qaaluu xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana aabbayaal wixii laga dhaxlaa nagu filan aabbuhu waa khatar marka hadduu qalloocdana hadduu inkaarqaba yahay wixii laga dhaxlay wax daran hadday noqdaanna kuwani waxay la lumeen xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana ilaahay wuxuu yidhi awalow kaana aabaa'ahum laa yaclamuuna shay-an walaa yahtaduun aabbayaal miyaa la yska raacayaa haddaanay waxna garanaynin hanuunsanayna okay waxaan leenahay aabbaha guriga jooga haddaan waxna garanayn hanuunsanayna carruurtu way raacaysaa waxa uu wadaa bay ku raacaysaa idan adaa lagaaga baahan inaad waxna garato hanuuntana haddaad rabto in kuwani hagaagaan adigu waxna garo hanuunna aayadda labaadna ilaahay wuxuu leeyahy في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وسيدي يوكالي والراعي الدين تمرك الله إله وحي لين ما يوحي عنه كسو قاعدني آبايال بانو غفلا إلهي وحلي ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون آباياشود هدي garaad laawayaa lahaayeen aan jidka saxa ahaynin namiyaa la raacaya waxaan ku soo koobayaa leeyahay aabbahaya siduu u dhaqmaa ayay u badan tahay gurigu inuu u dhaqmo haddaan dabadda ka imanin wax ka xoog badani haddaanay dabadda kaga imanin maxay wax ka xoog badani waa suurtagal aabbahoo fiican wax ka xoog badan inay dabadda ka yimaadaan waa suurtagal aabbahoo xun wax ka xoog badan inay dabadda kaga yimaadaan laakiin asalku waxa weeyaan intan uu hogaaminayaa siduu isagu u dhaqmaabay inta badan u dhaqmaya warkaygu markaa wuxuu ku kooban yahay carruurtii baa xumaatay ama carruurtii baanu u taag weynay armay ka horraysaa aabbayaashii baa loo taag waayey haddii aabbayaasha loo taag helo kuwan yaryarna in loo taag heli lahaa ama hooyayaasha haddii loo taag helo in kuwan yaryarna loo taag heli lahaa in badan waxaynu ku celcelinaa tarbiyatul awlaadka hala sameeyo tarbiyatul awlaad haddaad maanta oo dhan kutub akhrino oo manaahij danno laakiin ciddii hormuudka ka ahayd tusaalaha ka noqon lahayd iyadoo aanay qumanaanaynin waa adagtay inuu kan yari qumanaado marka warkaygu wuxuu ku kooban yahay war nabi maxamed baa ilaahay yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwaa ku dayo innagana nabi maxamed baa layidhi ku dayda dadkan yaryarina kuwan ka waaweyn bay ku dayanayaan kuwan waaweyni ha qumanaadaan kuwa yaryari wayna qumanaan doonaan bal ee waxa la arkaa haddaad adgu qumanaato ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qumanaantii waalidka qaar loogu naxariisto waxoodii loogu ilaaliyay fii suurati alkaaf وكان أبوهما صالحا با إلهي أبيا شهد باها أي صالحها دبتنا بسلاحهم أي انتفاع صدين كون يريرو إلهي سبحانه وتعالى وحودي وقدوري إذن صلاحه والدكم إن شاء الله عدد عمايو لكن وحي لنا إنه أن نقرن أبيه الوضع ينكر لها صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين